dadkii shacabka Soomaaliyeed ee isugu soo baxay ayaa ku soo xoomay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Guuleed waxay doonayaan qaarkood inay sawir la galaan waxaa sidoo kale garabkiisa taagan ambassador Yusuf Garaad Cumar ambassador su'aal ku weydiin karaa wuxuu yiri ambassadorku waxa hadli doona ra'iisul wasaare ku-xigeenka إن شعب كيف صحوا من وعدونيان إن مسؤولينتا أي لهذلان واحد نقد داون إنسان داو ضيال تيفيجا 5 صومالي تيفي وحنو جوجنا مقالة هيك لأن حنونتا محكمة ICJ أو أي مانتا قبل عوضتي دعودي لجيسي قوات دعوة بدأ صومالي كينيا دتكوي حماس ديسيين iyagoo aad maanta dhanna qabowga jira ay meesha u taagnaayeen watahay shacabka iyo ra'iisul wasaaraha waxay wada galayaan sawiro mudan ra'iisul wasaare watahay waxaan su'aalka weydiinayaa maanta sida ay xaaladda dacwada ku bilaabatay ما حي فينا كنا شعب كصوماليات إن شاء الله إله إذا كسبوا رجال ما حين وقت تاج بس واتاي رجال سيد مقلس وحول شيء إني رجال في عنتهاي أو أي رجينا يا نقول إن شاء الله إن كاسين وحوا رئيس الوزراء كحجان كصوماليا مدن مهدي جوليت أو كم إذا مسؤولين في كقرب بالشيء وحان هذا مدن أبو كات وحكوا ديننا حالة سيدة يدمنت يا تفيق واي مركا بل نوشة درينكا كوا الدرمان تسيدي حالته ايد مادام بلاك كجرتي مركا maxaa laga filan karaa arintii maanta filan karaa in dadka Soomaaliya wataay aad iyo aad u maasan tahay insha Allah waxaan rajaynaynaa guul xidhadaalihii hore qaranka mudane Axmed oo runtii dadkii dacwadan soo bilaabay kamid ahaa 2014 ilaa 2016 ilaa haddana taagan ayaa hadda nasiib u yeeshay inaan soo istaago waxa laga daawanayaa TV-ga 5 Somali TV oo si leefa ugu jirta waxaan ku weydiinayaa xaaladda maanta sida ay gudaha idinka ku jiray هذه دورة الماسين الصومالية دارو نشان كمان كأشياء يمين عندي ما أنتظر قبول قتاجنا المدينة ساوي الدنيا بالنمو الجو زمان بدها وقوها لا ودري واحد تبي قال إيش هذا ضمن يا فرح عالم وين ومن الصومالية وين هاي حقيقة سيرن في من نمر هذا يو ها يشير إلالين تا سفينة تبغى يقول هذا وحرجيني إن أنا نقول كده ماتو ما أنت بدي أنا سداسي لك بعدين تادي على waxaan maqlaynaa warar sheegaya in dawladda Kenya maanta ay maxkamadda la soo xiriirtay ay sheegtay inay doonayso in waqti la siiyo ay ku hadasho arintaas maxaa ka jira waxyaabahaas ma doonayo inaan sii dhex galo waa hawl maxkamadeed waaye arrimaha maxkamadana aad looma sii guda galo laakiin dawladda Kenya waxay ay soo qabsatayba waa laga diiday waxyaabihii ugu badnaa maanta diiradda la saaray maxay ahaayeen furitaanka maadaama ay maanta دلوقتي دعوة يا لقاها الله يمان دلوقتي دعوة أو سيدا عبد الله إنه يدور كان واسط خواني توافق سلطاي كل توافق سلطاي شروع الصومالي توافق سلطاي شروع الكين توافق سلطاي حدود كنا ويا سيدا هو دلوقتي شعب الصوماليات محل هذا محل هاي بشارست
قول بالرجال aad baad umahadsantahay mudan axmed daahir ayuu kaasi ahaa xer ilaaliyihii guud ee hore qaranka oo runtii si weyn uga qayb qaatay dacwadani furitaankeedii ilaa iyo hadda soo bilowgeedii 2016 ilaa 16 wuxuu ka mid ahaa dadkii dacwadan qayb ka qaatay waxaad u jeedaan shacabka Soomaaliyeed oo iyagu weli jooga xarunta maxkamadda horteeda maanta laga soo bilaabo ilaa iyo maxkamadda inta safrmin ka hor ilaa maanta oo dhan ay khawowga taagan yihiin waxay doonayaan inay muujiyaan dareenkooda walaal magacaaga aniga Mubarak Xasan Rubeeraw Mubarak xagee kaga timid arintan keligii baa mi wallahi haye dhulkayga dadkayga badayda diinteeda Soomaalinimada ha noolaato dareenkaaga cidnaba dulminayna waxayna loo daayo dadkayna loo daayo aad baad umahadsantahay Mubarak aad baad umahadsantahay weli waxaa naga daawanaysaan aad baad umahadsantahay waxaad naga daawanaysaan weli 5 Somali TV walaal magacaaga wata aad iyo aad baad u mahadsantahay waad u jeedaan daawadayaal shacabkii Soomaaliyeed iyo madaxdii siday dareenkooda u muujiyeen weli waxaad nagala socotaan 5 Somali TV waxaanu joognaa magaalada Heeg aniguna waa Cabdiraxmaan Suubiya inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkaasi tan barnaamijka kale mid ku mid doon waxaan kaga tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh قولي قبل ما قلت جيني مدخل شمالي